تدلبيو وحيرتو سمرك دارسيو فديق دايرو وكا دا إن كان قعدي أبالي دوايك القعيل كدوع دا أدكي شجد تدلبيو وحيرتو تدلبيو وحيرتو qof ayaa su'aal weydiiyey Bill Gates oo ah ninka adduunka ugu taajirsan wuxuu weydiiyey su'aasha ah ma jiraa qof adiga ka taajirsan oo ku nool dunidan Bill Gates ayaa ku jawaabay haa qof ayaa jira iga taajirsan aniga kadib wuxuu ka sheekeeyay qiso yar oo ku dhacday wuxuuna yiri waxay ahayd mar aanan taajir ahayn caanna aan ahayn waxaan joogay airportka New York waxaan arkay nin iibiya newspaper waxaan rabay inaan gato laakiin waxaan waayay lacag aan ku gato marka waa aan iskaga tegay fikradii ahayd inaan gato waana u celiyay ninkii waxaana ku yidhi ma haysto wax change ama lacag ah ama baaqi ninkii ayaa yiri waan iska kaasiinaya free ayaan kugu siinayaa qaado isagoo igu diidan inuu igu soo celiyo ayaan qaatay mar labaad 2 bil ama 3 bilood kadib ayaan haddana ka soo degay airportka waxaana mar labaad u baahday warqadii balse waxaan waayay change aan ku gato ninkii ayaa haddana siiyay warqadii newspaperka mar kale waan diiday wuxuu igu yidhi waad qaadan kartaa sababtoo ah wax khasaare kuma qabo faa'iidadii soo gelaysay ayaan tan ka bixinaya soo khasaare ma gelayo waan qaatay newspaperkii 19 sano kadib waxaan noqday caan waxaan noqday nin ay dadku idil wada yaqaanaan mar bay igu soo dhacday xasuustii ninka waxaana bilaabay raadiskiisa bil iyo haaf aan raadinayay ugu dambayntii waa aan helay waxaana weydiiyey ma i taqaanaa wuxuu yidhi haa waan ku garanayaa waxaad tahay Bill Gates kadib waxaan weydiiyey ma xasuusataa nin aad maalin siisay newspaper oo free ku siisay waan xasuustaa ayuu yidhi 2 jeer ayaan weliba ku siiyey Bill Gates ayaa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan ku abaalgudo caawimaadii aad caawisay aan kugu abaalgudo marka wax walba noloshaad u baahan tahay waa aan kuu fulinayaa ii sheeg oo kaliya ninkii ayaa wuxuu yidhi uma malaynaysid miyaa caawimaaddan aad caawinayso ayaad sheegayso inay u qalmintayda oo ay taydu yacni ka badan tahay Bill Gates ayaa wuxuu yidhi waa sabab wuxuu yidhi ninkii ku jawaabay anigu waxaan ku caawiyey anoo faqiir ah oo wax badan haysanin adiguna hadda adoo ninka ugu taajirsan ah ayaad rabtaa inaad caawiso marka sidee isku keenayaan labadeena caawimaad yacni adiga wax khasaare ah ama dareemaysa ma jiro maalintaas ayaa waxaan ogaaday ninkaas inuu iga taajirsan yahay ayuu yidhi Bill Gates sababtoo amuusan sugin inuu taajir noqdo si uu qof u caawiyo marka dadku waa inay ogaadaan oo fahmaan ninka taajirka ah inuu yahay qofka wadnaha taajirka ah ee ma aha qofka lacagta ku waalan marka waxaa aad u fiican inaad leedahay qalbi taajir ah si aad dadka tabaalaysan aad u caawiso haddaad fiidiyogan ka heshay labadaaga asxaabtaada iyo qof walboo jeceshahay si aan u sameeyo fiidiyoyaal kaloo badan Thank you so much and don't forget to subscribe, like and share. كدرسيو فديق دايرو وكا دا إن كان قعدي أبالي دوايك القعيل كدوع دا تدلبيو وحيرتو سمرك دارسيو فديق دايرو وكا دا إن كان